آياتها القرآن الكريم وحان إمك ويريا أذكرك جامع حسن سيوك المديس القرآن كائن وغفره. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفيه خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. runtii waa aad yar oo kooban laakiin aad u ballaaran weeye haddana iyada ku dhaqmayno wax waliba waynu hagaagi lahayn way koobanto waa yar tahay laakiin wax kasta soo hoosgelaya marka ilaahay anigoo ku hadlaya magaca jaaliyada reer Khaatumo Greater Toronto area magacayga la yiraahdo Sulaymaan Hiirad Warsame waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. intaas kadib sida uu hindi halkan inoo sheegay aad baan runtii ugu faraxsanahay inaad ka soo qayb gashaan xafladan qaarkiina aad meelo fog ka timaadeen aada ayay inoo noqotay inaynu every year u xafladayno jiritaanka Khaatumo Khaatumo waxaan u maleynayaa inaynu wada ognahay Khaatumo Ilaahay wuxuu ka abuuray bartamaha Soomaaliya meesha isku xidhisay ummadda Soomaaliyeed south iyo north waqooyi iyo koonfur sidaa darteed ayay tahay astaan ummadda Soomaaliyeed moolba xasuustaan waxa taa raaca inay tahay meeshii ugu horeysay ee laga bilaabay gobonadooyinka Soomaaliyeed 1880kii kacdoonka Soomaaliyeed ee Soomaaliya laga xoreyn lahaa taa waxa raaca inay haddana noqotay caasimadii koowaad ee ummadda Soomaaliyeed waxa laga yaabaa dad badan inaan ogeyn taleex inay tahay caasimadii koowaad ee ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto wax Soomaaliyeed haddaanu nahay bahada reer Khaatumo annaga astaanteedu waxa weeye midnimo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed iyo israaca ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto marka walaalayaal taa laftirkeeda waxaanu ka soo marnay runtii dhibaatooyin fara badan oo ay ka mid tahay in lagu xasuuqo yani magaca ummadda Soomaaliyeed dadka meesha dega oo inta u dhaxaysa 1980kii ilaa iyo 1920kii lagu laayay cadad aan la soo koobi karin
marka loo eego numberka dadka beriga joogay inta waxa raacay ilaa iyo maanta inaan u taaganahay in jiritaanka ummadda Soomaaliyeed ay noqoto mid jira geeska Afrikana ka muuqda iyadoo waliba aan filayo inaanay Khaatumo helin yani wixii looga baahnaa aanay ka helin ummadda Soomaaliyeed ama garawshiyo aanay ka helin badana ummadda Soomaaliyeed oo ilaa iyo maanta aanu dadaal weyn ugu jirno inaanu magaratay ku istaagno lugahayaga waanu idhaahno waxaan xaq u leenahay wax allaaliya wixii dowlad goboleed jira ay xaq u leeyihiin taana waxaan u dirayaa runtii waa fariinaan u dirayo madaxda maanta maamusha ummadda Soomaaliyeed ugu horeeyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo aanu leenahay madaxweyne runtii waad gabtay anigu sida aan qabo ama waad baalmartay mas'uuliyadii ka saarnayd dowlad goboleedka Khaatumo ee ahayd in waliba sadbursi iyada la siiyo maadaama ay ku jirto meel muhiim ah oo isku haynta ummadda Soomaaliyeed important waa aad baad ma santahay Salebaan Hiirad one more time gudoomiyaha jaaliyadda Toronto oo runtii dhowrkii sano la soo dhaafay isku hayay dhammaan halgamayaasha soo qayb qaatay horumarinta jaaliyadda Toronto Salebaan Hiirad aad baad ma santahay waxa caawa martii inoo ah dhammaan jaaliyado kala duwan oo ka kala socda maamulada uu ka kooban yahay dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa halkan jooga jaaliyadda Khaatumo sidaad aragtaan sidoo kale jaaliyadda Maakhir Awdal State Puntland Galmudug Jubaland South West iyo dawlad deegaanka Soomaaliyeed intuba way ku dheeyeen waxaan u rajaynaynaa dhammaan maamulada iyo kuwa cusub ee dhismi doonaba ha noqoto Hiiraan ama ha noqoto Banaadir ama ha noqoto gobolada waqooyiga jira ama gobollo kale cusub ha noqdaan in Soomaaliya runtii ay midowdo ay isu yimaadaan ayna wada qaybsadaan si cadaalad ah khayraadka uu leeyahay deegaanka Soomaaliyeed ee ballaaran waxaan ka bilaabayaa inaan u yeero aqoonyahan xubin runtii muhiim ah oday Soomaaliyeed oo ka mid ah jaaliyadda Khaatumo ee magaalada Toronto adeerkay Abshir Awil waxaan doonayaa inaad microphone ka timaado بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنيقو لايقو شرفي إن أري كسو جيديو حفلتي لو دبالدقيي خاتومة ستيت of Somalia تي أفراد آدي أيان إذنكو مهد علينا يا رقئي الضمر تدكينا كسو قيب قلي النسيي شرفتا أدنوغو تمادين وسيدا أوبو حسامي هولكي وحان إن يرؤو قدبيا مادام آنو أفرشرساني إنينو نهاي أن لغا حدلينون خاتمو يمامو الكلية إنينو نهاي داد صوماليات oo himalo wada leh oo ujeedo wada leh iyo waxaynu doonayno waxa su'aal aniga aan jeclahayna inaynu isla qaadano dibtayna haysata hadaynu Soomaali nahay waxa weeye wax la yiraahdo governance waxa la yiraahdo governance waxa weeye maamul guud oo dawladnimo oo ka duwan administration مثلا marka la yiraahdo US administration waxa loo jeedaa dawladda executive ka marka wax wada laakiin marka governance laga hadlayo waa dawlad ummad wadan wada degan oo wax ka dhaxeeyaan af diin dhaqan iyo caado intuba ay ka dhaxayso
innaka raaliga hada innaka ilaahay wuxuu nagu manaystay intiiba inaynu wada leenahay intaas dal nation waxa la yiraahdo ummad lagu tilmaami karo inay Soomaali wada leedahay oo marka aad saylac ka bilowdo ilaa Kismaayo haddaad lugaynayso iyo haddaad gaadhi wadataba aan afku ciilayn oo dhaqanka isku mid ah ay tahay wadad isu eg aynu nahay oo waxa allaale waxaynu ku kala duwanahay aanay jirin marka su'aasha isweydiinta leeyahay meesha taala waxa weeye maxay Soomaaliyu heshiin weeydi maxay naga dhaxeeya oo aynu u kala jeednaa oo quluubteena u midoobi weeyday waa su'aal nin kasta oo aqli leh ay tahay inuu isu iyo gabadh kasta oo aqli leh inay isweydiiso meesha jirta anigu haddaan ku soo dhawaado waxaan qabaa inay tahay sababtu inaan dadkeena Soomaaliyeed aanay haysan hormood bini aadama oo daacad ah oo rabbi iyo rag yaqaan oo inahaga iyo dad taakuleeya iyo inteena kale oo ku daba faysha haddaynu isweydiino inaku مثلا nation markaan ka hadlo nationku waxa weeye ama guri la dhisayo ayaynu ka soo qaadaynaa guriga marka la dhisayo maxaa ugu muhiimsan haddaynu isweydiino maxaa asaaska soo maaha foundationka ummaddu ama guriga waxa weeye cadaalad haddii cadaalad la helo cadaalad xitaa gaajo leh oo aan ognahay inteena halkaa fadhidaa ninkeena xukuma inaanu inoo kala eexanayn qabiil inoo ku kala eexanayn wax kale inoo ku kala eexanayn waynu dabagelaynaa cadaaladda haddii la helo waxa jira guriga haddii la dhisayana bahala la yiraahdo tiirar ama pillarska maxaa noqonaya ummadda law and order cadaalad haddii la helo waxa markaa cadaaladii fulinaysa dastuurkii iyo qawaaniintii waddanka tilay ee lagu kala dambeynayay waxa guriga saqaf u ah oo markaa lagu daboolaya marka inta la helo waa maxay imanaya nabadgelyo intaas weeye waxa ummadda dhistaa inta Soomaali ka maqan waa intaa inaynu ku heli lahayn dariiqeedii ma hayno su'aashan isweydiinayno weeye anu waxaan qabaa inaan ilaa hadda lahayn inay noqotay inaynu sharciyeysanay wax la yiraahdo ninka doonanaya xukun ee waddankeena jooga waa nin u doonanaya ama baarlimaan ha noqdo ama wasiir ha noqdo ama wax ka sareeya ha noqdo waa nin u doonanaya dantiisa inakoo aragna inuu dantiisa u doonanayo ayaa ummadii ahayd inay iyagu gartaan ninkan soo baxay muxuu rabaa ayaynu shacabka u garaacaynaa marka maxaa meeshii ka abuurmaya jahwareerka ina haysta aynu isku haysanaa waa taa oo aan xag diineed iyo xag dadnimo iyo xag dabeecadeed bini aadam midna aan ku hagaagsanayn marti sharafta waad mahadsantihiin ajiibadaad ajiibteen yeeristaanu idiin yeernay waxaad ku mahadsantihiin mar kaliya maaha waa tii afraad oo aad sidaasoo kale noogu timaadaan rag iyo dumar iyadoo winter ah waxay ku soo beegantay January khaatimo dhalashadeedii had iyo goor weatherku waa ageenis buu naga ahaa maanta waa fiican yahay tantii ka horeysay 40 buu ahaa visibility 0 buu ahaa laakiin maanta waxaan u maleynayaa weatherkii iyo khaatimo waa soo heshiinayaan inta haddaan ka baxo aku dheeraanu baa la yidhi waxaan rabaa inaan wax yar idiin sheego halkaa waxaad ku arki jirteen madaxweyne Soomaaliyeed madaxweyne ku xigeen waxaan leeyahay ra'iisul baarlamaan prime minister war caawa way horta
ma isweydiiseen ma ku aragtaan maya khaatuba calankaasa ku haray kaliya qolahaasi amir waa isdeeyay laakiin waxba dhibaatay oran mayno hadda halkan uma aan soo istaagin inaan wax ka sheego la imanayd inaan baraay minister iyo madaxweyne toona wax ka sheego laakiin annaga tan xukuna nooma muuqan sawirkoodii baraay minister madaxweyne ra'iisul baarlamaan la keeni maayaan niri waxaan hadda inaga dhaxeeyay gidigeen waa calankaas aanu nagaga sii haray hadaanu khaatubanahay Soomaalinimadii waxaan leeyahay waa waxaanu tirsanayno maaha shacab weynaha Soomaalida maaha xubnaha bulshada ay ka kooban tahay maaha waa madaxda Soomaalida waxaanu qoray marka ninba wuxuu yiri duruflay xamaarada kol aan daris xigaalmoodo waa darugsan yahay geedigan daarka ku hayaay deeqaaga eebo wada laga durdurtaa annagii Soomaali wax yar baa isugu kaayaan Soomaali waxa weeye ninba wuxuu yiri Yurub yaan waa dhaxdaas tagay 99kii Soomaaliya waxa wadaada qasay waa lagu soo duula dagaalada ka dhacay civil war baa ka dhacay Ethiopia loo isticmaalay balaayas waa gobolkii baa la qasay wadaadadana ka dambeeya leeyihiin reerka gobolka leh marka nin dadka gobolka ka yimid ayaa la yiri wadaadada ku soo garaaceen imaamada wata waxay yiraahdeen masaajid baan dhisaynaa xoolaan rabnaa si uu yeelo garan waayo wadaadada ma arki karo ninku markuu kari waayay waa nin weyn oo oday ah oo aniga hadda aan jooga oo ma iga sii weynaa wuxuu yiri wariyaale maalin walba waad ii timaadaan waxaana iga lama tagtaan waxaan idin sheegayaa reerka isaga aan anigu ka soo jeedo muddo 2 sano diintii waa ka baxay wadaadada waxa nagu soo noqonayna buu muddo 2 sano ah diintii waa ka baxnay marka 2 sano kadib isu keena taqilla waray saasan idin leeyahay buu inuu kala wada ma fahamteen anaga Soomaali muddo yar baa isugu keen soo hadhay hadda wax yar waxaan u leeyahay waxaan anagu markaan buugayaga akhrisanay meel gobonnimo Soomaaliyeed laga abuuro waxay ahayd buuhoodle xarun Soomaaliyeed oo dawlad aan taleex bay ahayd meel dayuuradii mamgaraysana marashiba ay ahayd intaas iyo in ka badan bay ahayd barisaabka wad ka waraysaan joogi jiray meesha leeyahay irida aamin ilaa rabdhuure ilaa berbera dawlad baa jirtay marka arintu ma aha inaanu niraahno aborkii dudumada dhisay abeesadu marka iyadu iska ku intifaacaysay annagu saasaan horta noqonay marka hadalka waxaan kaga baxayaa waa idinku waad mahadsantihiin Soomaalinimadeeni waa laakiin intayna isku jiri karnay waa isku jirnay 8 bilood ee hadda dawladda u harsan baa ama waanu ku soo noqonaynaa ama waan idin ka tagaynaa salaamu calaykum rabbi suu'il xududaadu sida urugsiyo u baxurdina abdi doonta عليه بلوغي حدكتا عطانكي تحفكك عبيرتي عزيقي حريتي كسوعي بكوي مفريد وضع قرنقم علا
وعشائي ماني عليو عالم كويل عليو مقاعسيني عليو عدكا وشقيني عليو عراد الدعبة عليو شدالك عميلا عليو عيني لصوفي عليو والعين كبسي عليو إن شاء الله مرة ذرانو ربي صور العدودانو سيد عرفتي وبحر دينا عبد دونتا إن شاء الله مرة ذرانو ربي صور العدودانو سيد عرفتي وبحر دينا عبد دونتا tahay heeska calanka Soomaaliyeed laakiin waxaan doonaynaa inaanu sii soconno oo bal cawaale aan weydiino in uu inoogu luqeeyo hees uu ugu talagalay dadyowga degan Sool Sanaag iyo Cayn ama loo yaqaano Khaatume State of Somalia cawaale iyo wixii uu ka yiri maamulka Khaatume State bal dhagihiina u fura aad iyo aad baa u mahadsantiin طيادة صولو تاني أبوه لأيام تمشلين خاتومة يدلكي دايام تمشلين تاني كالشا لأيام تمشلين خاتومة يدلكي دايام تمشلين ربي جيجم لطاب سيتا من نقدي وحن تحت حاشي طيادة صولو تاني أبوه لأيام تمشلين خاتومة يدلكي دايام تمشلين تاني كالشا لأيام تمشلين خاتومة يدلكي دايام تمشلين
togano tusbaxa uroga anoo togayo waxaan tirsadaa intaan tegiyoon taleexiyo gaadhi tusmada cayne waxaan tirsadaa bilaha togano tusbaxa uroga anoo togayo waxaan tirsadaa intaan tegiyoon taleexiyo gaadhi tusmada cayne qalcadda ku tilmaama taariikhdiyo qalcadda ku tilmaama taariikhdiyo talada dar ilaalo waan tegiyey qalcadda ku tilmaama taariikhdiyo qalcadda ku tilmaama taariikhdiyo talada dar ilaalo waan tegiyey qalbigaygan la taabtay taaba noqdee waxaan taxta xaashi tayada soolo taniyo buuhoodle ayaan tamashlayn khatuumay dilkeeda ayaan tamashlayn taniyo kalshaale ayaan tamashlayn khatuumay dilkeeda ayaan tamashlayn qalbigaygan la taabtay taaba noqdee waxaan taxta xaashi tayada soolo taniyo buuhoodle ayaan tamashlayn marka qofka doonaya inuu qoobka ciyaarka iyo jecel fadlan haddaba sii practice garee haddii aad biyaad cabto u baahan tahay xagga iyo gadaal haddii aad tim hortan u baahan tahayna still available buu ku yahay iminka waxaan doonaya inaan khudbadaheenna in yar ka taabanno kadibna aynu u soo noqonno horta qof ma jira ciyaar Soomaaliga yaqaana ciyaari dhaqanka Soomaalida alright way noo dambeyn doonaan iyaguna waxaan iminka u yeedhayaa waxaan u malaynayaa xamaasadu inay aad iyo aad u fara badan tahay oo aad iyo aad loo wada qiiraysan yahay laakiin dhawaan hore nooga sii soconaynaa waxaan u yeerayaa oday Soomaaliyeed oo ka socda jaaliyadaasi maakhir oo aan doonayo inaan u yeero adeer xaaji daahir ciise ramdaani oo ka soo jeedo gobolkaasi Sanaag oo aan doonayno inuu ka warramo jaaliyadda on the fourth anniversary of Khartoum State of Somalia. Khartoum State of Somalia waa markii afraad waxaan marayaa laba jeer oo horaan u ka qayb galay marna waa maqnaa waxaan ku maqnaa Nairobi runtii reer Khaatumo sidoo adeerka sheegay iyo reer maakhir labaduba waxay leeyihiin talo wadaag waxaan rajaynayaa sanadka soo socda in labadooda oo runtii talo wadaagoodu intaa ka ballaaran yahay inaynu isugu nimaano mudanayaal iyo marwooyinba waa idin salaamayaa aad baan ugu faraxsanahay inaan xafladda tan ballaaran oo loogu dabaaldegayo sanad guuradii afraad ee Khaatumo aan halkaan ka soo qayb galo idinku bogaadiyo anigoo isla markaa cadaynaya anigu inaan horta Khaatumo ka tirsanahay marti sharafka iyo khiyaarta meesha isugu timid waa idin wada salaamaya dhinacaygan bidixda ka muuqata waxay la tahay markii saddex meelood loo dhigo meel waa galmudug gabadhii galmudug maasha Allah horta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan meeshaan soo istaago oo nu hambaliyeeyo sanad guuradii afraad ee Khaatumo aniga waxaa Khaatumo iiga ansiyaanaysan ninka odaga ah oo khiyaarka ah oo
shirkii lagu aasaasay oo taleex dhowr qodob baa dhacay waa maalintii muslimiinta iyagoo kun iyo 400 oo qof ah loo diiday inay xajiyaan marka meesha wax kale lama soo istaagin waxaan la soo istaagay inaan u hambaliyeeyo reexatumo waa iyaga geela iyo xoolaha aad u yaqaana marka maahiyadii jirta geela waa anfacaysa Soomaalidu waxay tiraahdaa xagal geel wax kilkil la geliya ka weyn waxaan codkayga ku biirinayaa tabashada Imaam Khomeini ruuxiga tabashada uu meesha ka soo jeediyay iyo dareenka la qabo oo anaga naftigeenu waa ka daawownay markuu hadlay meesha gadaashayda in masawirka ka dhiman yihiin waa u jeednay laakiin waa garawsanay tabashada jidda codkayga waxaan ku biirinaynaa haddii la yiraahdo in Khaatumo state sida isteediyada kale oo goboleedka ah loo aqoonsado dawladda federaalka ah Xasan Sheekh ila gaarsiiyo codkayga waa ku biirinaynaa haddii la yiraahdo arintaasi arina hoos u dhigayno ma ahan thank you very much Soomaalidu waxay maamaahiye kala tiraahdaa ninkii gacan qaadka hoos kuugu dhiga gabar hadduu ka soo doono lama siiyo waa loo diidaa marka hoos uma lihin mikrofon iyo masawirana haya annagoo ka soo horjeedna ayaan sheegaynaa dawladda federaalka ah Soomaaliyeed madaxweyne Xasan Sheekh waa inay dhaqsi haddii alla idmo masaalixda Soomaaliyeed calanka in la ilaaliyo midnimada in la ilaaliyo ayaa ku jidha inuu aqoonsado maamulka Khaatumo la yiraahdo oo Soomaaliyeed haddii la yiraahdo gacmo furan mahad celinaya madaxweynaha Maxamed Islaan oo numar qaaday Kismaayo anagoo 3 qof beesha baajuunta dhinaca amniga nabadda wax walbo assalaamu alaykum rahmatullahi wa barakaatuh lamankan reer Khaatumo dib laguma yaqaano dad kale oo dib badan jiro taagan Nairobi taagan ila dawladii muxuu ahay ku meel gaarka dhahay war dawladdu ma baahnin naga dhaafa gaalada ku dhahay state department ka xafiisyada tago dhahay dawladdu ma baahnin naga dhaafa dawlad ma noqon karno reer Khaatumo laguma tilmaamo marka dawladda federaalka waxaan u sheegaynaa in aysan dadkan aysan yaraysanin kaaga darane aqoon waa leeyihiin waxaan arkay hal laga faa'iideystaan leenahay waqtiga aad u gaaban yahay waa maaragtay aadan wax baleynayna waxaan horta u mahadnaqayaa dadweynaha reer Toronto ee nagu casubay xafladda tan sharafta badan sida sharafta badan loo soo hagaasimay waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh bacda salaan uma soo istaagin hadal fara badan sababtoo ah odayaal fara badan oo aniga iga daaweyn ayaa ka sheekeeyay waxa ay Khaatumo tahay waxaan aad ugu faraxsanahay in ummad inta leeg oo kala duwan oo Soomaaliyeed ay soo dhaweynayaan waxa ay dawladda federaalku ay garaweyday aad baan ugu faraxsanahay Khaatumo ahaan waayo dawladda federaalka oo hogaaminayo Xasan Sheekh way gabtay kaalintii ay Khaatumo ku lahayd Khaatumona waa udubdhaxaadka Soomaaliyeed haddii aad marka udubdhaxaadkii Soomaaliyeed aad xeerin weydo xaq ay u lahaayeen marka Xasan Sheekh waxaan leenahay
xasan waa inaad ogaataa inay Soomaalidu isku mid tahay oo isan kala mid ahayn inta markaan ka baxo waa la socotaan taariikhda hadda ay Khaatumo marayso waa sanadkii afraad sanadka shanaad insha Allah Khaatumo way ka gudbaysaa magacan waxay u gudbaysaa Khaatumo iyo Maakhir oo la isku daray magaciina waxa la bixin doonaa muddo 6 bilood gudahooda aad baan u soo dhaweynayaa sanad guurada afraad ee Khaatumo waxa weeye rag odayaal oo rugacdayaal ah meeshan ka hadlay oo yani si gaar ah microphone-ka ayuu ugu hadlay yaqaana anigu uma badni balse waxaan ishaarayaa wax yar Khaatumo sidaad u sheegteen waxaad ku jirtiin madaqad oo isku xirta gobolada ama degmooyinka ummadda Soomaaliyeed kala jiijid badan baa in ku socda in kuna dhacay laakiin waxaad uga fakanaysiin horta Soomaaliya waad ogsantiin xaaladda ay marayso Soomaaliya waa la kala qaybiyay waa la kala googooyay maamullo badan baa ka dhacay maamuladuna waxaad u gudbi doontiin hadaalinina ayaan idin leenahay Khaatumo waxaad haysatiin oo madaxdiin ah nin oday ah aqoon-yahan ah aqoon baan u leeyahay ragga kale oo maamul goboleedyada rag yar mooyaane weli kuwa dhama waxa ka imaan doona lama yaqaan rag waaweyn oo jeebab waaweyn u badan yihiin anuu jaaliyadihii gobolada ma ihi waxaan ahay jaaliyada Canada ayaan matalayaa oo aan ka sameynay dhawaan magaaladan Toronto waa jaaliyada guud ee Canada waxaan u dooranay gudoomiye Yaxye Xasan Mire saaxiibkay oo maqan waxaan ku hadlayaa codkii Yaxye ku hadlayaa codkaasna waa codka jaaliyada waa codkii noo dhan mid waxaan uga hambaleynayaa sanad guurada afraad oo aanan ka maqnaanin anigu markasta saaxiibaday ayaa maamula oo si fiican u maamula وعبد الرزاق حند iyo Cabdiqaadir Agi iyo Cabdirashiid bulshooyinka reer Khaatumo ummadda Soomaaliyeed meel waliba ay joogto gaar ahaan bulshooyinka reer Khaatumo iyo bulshooyinka xafladan ay nagala soo qayb gashay jaaliyadaha gaar ahaan jaaliyadaha Soomaaliyeed dawlad goboleedyada Soomaaliyeed waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxaan doonayaa inaan mahad gaar ah u celiyo oo aan idin salaamo insha Allah sida quruxda badan jaaliyada reer Khaatumo arigan Canada Toronto sida xafladan ballaaran aad soo qaban qaabiseen waxaan idinkaga celinayaa mahad ballaaran gaar ahaan gaas koobaad ayaa aad isugu shaqaliyay baan u malaynayaa aad iyo aadna waan idinkaga mahad celinayaa waan idin salaamayaa marka xigta waxaan doonayaa in laba kalmadood halkan aan ka iraahdo labada kalmadood waxa weeye wax qabadka dawlad goboleedka Khaatumo ee Soomaaliyeed wax qabadka dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Khaatumo ay gaadhay waxa weeye isku xirka bulshada reer Khaatumo marka ugu horeysa marka labaad si waxyaabo badan oo khaldamay oo de wadcigeena barayna waa jira oo dib laga saxay ama la saxi doono insha Allah taala ummadda Soomaaliyeed ama dawladda federaalka ee Soomaaliya run ahaantii way noo heelisay madaxweyne Xasan Sheekh
iyo ra'iisul wasaare Umar Abdirashiid gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Jawaari labada xubnood ee golaha wasiirada golaha baarlamaanka intaba way noo heeliyeen waayo maanta waxa aanu maraynaa wax waliba maalin waliba waxa ay taagneed waxa weeye qaatumo waxay ahayd iyo waxa ay tahay qaatumo waxay tahay abceeda soo baxday gacantu miyay qarin mayso qaatumo halkaas ay taagan tahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh anigu waxaan ku hadlayaa magaca Hiiraan State waxaan jeclahay inaan u hambaliyo qaatumo isla markaasna waxaan ka mid ahay qaatumo laftirkaygu oo waxaan u dhalay 5 caruura iyo 3 aan u ahay ayeeyo sidaas daraadeed waxaan ahay qof qaatuma laakiin dhalasho ahaan meeshaan ka soo jeedaa waa Hiiraan marka caruurtaydana cidii taqaana waa taqaan citaan aqoonina aabahood waxa la yiraahdaa Yuusuf Cabdi Shurdaan Allah u naxariisto wuxuu ahaa nin ummadda Soomaaliyeed dhexdeeda aad u qiimo badnaa wadani ahaa qocidii taqaana ayaa taqaanay Allah u naxariistay laakiin 91 ayuu dhintay walaalayaal marka waxa idin leeyahay qaatumo state hambaliyo bad haddana anigu faaduma ahaan waxaan jeclaan lahaa inaan Soomaaliya aan ahaano oo wax badan aan ka barano qaatumo waxay ahayd marka taariikhiyan dib loo raaco dadka wadaninimada iyo Soomaalinimadu ee aad ugu dheereed weligood u soo halgami jiray laakiin shacabkaasi weli wuxuu tabanayaa inay maqan tahay qaybtii ay ku lahaayeen dawladda federaalka ee Soomaaliyeed laga rabay inay buuxiso weli shacabkaasi waa tabanaya waxa muuqata in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay wado dadaal muhiim ah runtii oo ay kula shaqeynayso gobolada kale ee wadanka ama ay ku aqoonsanayso gobolada cusub ee haddaba ay ka mid yihiin galmudug anaguna aan ku faraxsanahay runtii sanadkii hadda dhamaaday
شاغور كي ودتيو شيرا أمحار